ka tarjumi mayso diyaaradii inta Hargeysa ka soo kacday maatada xasuuqda ka tarjumi diyaaradani waxay ka mid ahayd diyaaradihii dawladdii kacaanka ee uu hogaaminayay Generaal Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1988 ayay ka kacday magaalada Hargeysa isla magaalada Hargeysa ayaanay duqaysay sanado badan ayaa waxay ahayd astaanta koobaad ee magaalada Hargeysa laakiin toddobaadkii la soo dhaafay ayay xukuumadda Soomaaliland dejisay iyadoo sheegtay in qaab cusub ay u nashqadaynayso xukuumadda Soomaaliland waxay sheegtay in diyaaradan loo nashqadaynayo qaabka sawirkan ka muuqata balse khubarada bartay cilmiga nashqadaynta iyo astaamuhu waxay aaminsan yihiin in la dhalan bedelay astaantan xildhibaan Cabdiqaadir Jirdo oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha ku-meel gaadhka ee xisbiga wadani waxa uu Honkable u sheegay in nashqada cusub ee xukuumaddu soo bandhigtay ay tilmaamayso guul taas oo meesha ka saaraysa macnihii diyaaradan loo saaray goobtan waxaan aqoon u leeyahay waxa weeyeen ninkii soo maray waa maray Ruushka oo dagaalkii weynaa labada adduunka galay aad bay u xusaan marka taalooyin badan baa loo dhisaa guusha waana historical ilaa Roman Empire-kii waxa loo sameeyay jiray markii ciidan soo guuleysto arkooyin baa loo sameeyay jiray traditionally arkaas halkii ka socda marka wadiga arkay xarunta weyn ee Paris ku taal gawaaridu kala wada leexato xamar bay ku oli jirtay oo berigii faashiisku u sameeyo halkan fisha gubernayo iyo meeshii loo oran jiray jardiinadii ka soo horjeeday in uu laayo fooqiisa halkii sinimada laga dhigi jiray arka ku taalay oo faashiistuhu dee sameeyo de guulihiisii meelihii Romanku gumaysto dhan bay ku taalaa Roomay ka buuxdaa marka waa triumphant yani waxa loo dabaaldegayaa guulo la gaadhay ayaa loo sameeyaa kan maanta laga hordhisayo khayriyada haddaad eegto structure-ka oo dib ugu fiirsato oo eegto dee dalalkii waxa soo sameeyay waxaad moodaa mid guul la celebrate gareynayo guul baa ka muuqata arkayaashaas inagu culture-keena meel ka jiraan dhaqankeena maaha mana dhisana inagu caalamka islaamina lagama dhiso waa tradition ka yimi Romanski iyo Greek-kii ka yimi maaha wax inaga dhashay inaga caalamka islaam xadaaradii islaamku waxay samaysay oo inuu ka dhaxlay maaha waa wax qolada ka yimi tii uunba waxaad moodaa cotton paste inta meel lagu arkay la soo guuriyay arkayna waxa weeye askari Ruusha oo guul dagaal de saada loogu dabaaldegay inuu guuleystay ayaa dul taagan imika qofka sidaa u arkaa wuxuu moodayaa diyaaradani diyaarad xaq inuu laho inoo dagaalanto inuu xoreysay diyaaraddu waxay yeeshay meesha sidii kama muuqato waxna waa cilmi gaar ah iyo aqoon gaar ah qof yaro xafiis ka fadhiyo inta loo dhiibo Google galo ka soo guuriyo waa inuu fahmaa message-ku gudbinayo waxa uu soo guuriyay message gudbinayana waxa weeye waa guul loo dabaaldegay askari baa dul taagnaa magaalooyinka Ruushka waa inuu dhamma ku wada yaalaan meel walba ku yaalaan waa guulo loo dabaaldegayo marka diyaaradani ma muujinayso arkan ay dhiseen xanuunkii la inoo geystay ma muujinayso qof aan aad uga fiirsan markaad wax sameeynaysan culture-kaaga iyo dhaqankaaga ayaa lagu saleeyaa ka tarjumi mayso diyaaradii inta Hargeysa ka soo kacday maatada xasuuqda ka tarjumi mayso waxaad moodaa diyaarad dagaalkii intay ka qayb gashay iyadu guulo inoo keentay oo la dabaaldegayo ninka dabada ka yimaadana ilaa loo sharxo lagu diso wuxuu arkayaa un dee waa celebratory baa waa triumphal arcs baa leeyahay waa tan dee arkay odiga arkay Paris ku taal Jarmalku markuu qabsaday Paris dabaaldeg buu ku hoos maray soo le waa maxaa haysan soo idinka jabay maaha structure-ka arkooyinkaasina dhaqankeena meel laba kaga ma jiro ma dhisana inagu caalamka islaamina si gaar ah looga dhisaa islamic architecture baa jira waxa loola jeedaa diyaaradda Hargeysa ka kacday Hargeysa duqaysay kama muuqato waa triumphal waa dabaaldeg waa rayn waxaad moodaa diyaaradda inta dagaalka ka qayb gashay inaga inoo hiilisay oo kale waxa la sameeyaa taas oo kale concourse baa la sameeyaa tartan dad baa loo diraa aqoontan leh ama Soomaaliya ama cid kala haadeen oo sheekada looga sheekeeyo wixii dhacay waxa weeye artsku dagaalka waxbuu ka qaataa taariikhda Spanish Civil War-kii magaalo dhan baa la baabiyey ninkii loo jiray Picasso wuxuu ka qayb galay sawir aad cajiib oo caalamka oo dhan laga yaqaano oo Guernica loo jiray magaalada
waad garanaysaa waad markaad aragto waad argagaxaysaa magaaladii la baabiyey inay tahay ardku wuxuu ka sheekeeyaa uu commemoraate gareeyaa wixii dhacay kani ka sheekayn maayo maatadii la laayay dhibaatadii diyaaradana geysatay qofka sidaa u arkaa anu mar arkay markii waxaan u qaatay ninka nimaan fahmaynin inuu keenay oo waxa uu eeg tahay diyaarad inta dagaal gashay waxayna tartay oo loo dabaaldegayo la xusaayo waxana waa cilmi dhan oo la barto sculpture iyo architecture baa halkan iska galay fariintan u diraya waxa weeye war waxaan dib ha loogu noqdo oo dad yaqaana waxan ha la doono waa la helayaa Soomaaliya waa la helayaa Ajnabi waa la helayaa xasan Suleymaan Haruun xasan Galayd wararka Cable magaalada Hargeysa